dagaal kale uga dhaco waa inaad sharciyada ka qaadataan waa inaad ka bixisaan wadanka fartiintaasaan u farayaa nimankii meydkiina jiiday dadkii aad ugu tagteen macaawino inaad siisaan ood caawisaan meydkiina jiiday ayaa Maraykan idinla joogo oo qurbo oo dhan idinla joogo nabadna ma rabaan nimanka hawiye beeshaan anu ka soo jeeda nabad ma rabaan wax kasta waa loo tanasulay gabdhihii bay codad u soo duubayaan oy handadayaan ani qabiil wax iga galay ma jirto nabad baan rabaa ninkii nabadda naga qaado intuu na soo qixiyay qurbahana nooga daba yimid haddana lacagaha halkaa ka dirayaan oo dahabka ay ku gadatay ayuutada halihii caydha loo siiyey ay dirayso ay rabto inay ma aragtay dadka isku dilaan waan arkaynaa fiidiyoyaasha la soo dirdiraayo la leeyahay qorigaasaan oga saaraynaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku soo fuulay sharci buuna ooga dagi xasuusta ku darsada nimanka maxay tal dagaal oogayaasha ahow hilibkii Maraykan soo jiidayow dal iyo dibadba nala joogow dibaddana nooga soo daba qaxay naga daba imaaday markaan ka soo qaxnay maantana dagaal oogaha xamar joogo Muuse Suudiye la xowkow ka yahay Sheekh Shariif laba ka yahay Xasan Sheekh saddex ka yahay Madoobe afar ka yahay ninka caloosha ballaadhana dan la leeyahay shan ka yahay ninkan xunka Siisi la leeyahay toddoba ka yahay ragga haddayna soo xirxiran ciidamada Maraykanow nabad ha sugina nimankan uma socdaan umana dan laha maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxay u dan leeyihiin wax kala ma aho waxay u dig iyo dam leeyihiin ummadda shacabka iyo maatadaas ayay rabaan inay bililiqaystaan sidoodii bay rabaan gabdhaha inay fuulaan sidoodii bay rabaan inay gabdhaha kufsadaan sidoodii bay rabaan inay jiingadaha fiiqdaan sidoodii bay rabaan wadankeena shalayna ayaga naga soo qixiyay maantana waa dagaal oogayaal dal iyo dibadna waa joogaan xisaabta ha lagu darsado Maraykanow xawaaladaha xir Maraykanow xawaaladaha Soomaalida dahabshiil ay kow ka tahay waa inaad xidhaa qof kasta oo wadani ah oo Soomaali ahowna waxaan kugula talinayaa dagaalka ay mooryaanta nagula jirto waa inaan annagana dhinaca ka dagaalanaa annagaa ka awood badan mooryaanta annagaa ka awood badan Facebookyada soo wada istaaga annaga dad muslimaan nahay diintaanadaa lagu dheelayaa dadnimadaanadaa lagu dheelayaa calankaanaga Soomaaliyeed baa lagu dheelayaa dadkaanagaa la rabaa in la cuno oo la dubto dabka la saarto shalay baa nala soo qixiyey maantana qurbihii baa nalala joogaa naloogu hanjabayaa waa in sharciyada laga qaadaa dadka qurbaha joogo tuugada lacagta diraayo sharciyada waa in laga wada qaadaa kuwa Maraykan joogo kuwa Denmark joogo kuwa Canada joogo kuwa maxay hetalo qurbaha jooga tuugada waa in la isa sheegaa dadka u diraaya xamar lacagta geelka bixinaayo geelka la rabo in hantida Soomaaliyeed lagu xalaalaysto dhiigga Soomaaliyeed lagu xalaalaysto maanta qarankii Soomaaliya lagu furfuray ciidankii Soomaaliya lagu furfuray dadka qurbaha jooga lacagta dirayo qarankeena Soomaaliya dadka kala furfuraaya maanta raba dhiigga Soomaaliyeed inuu daato waa naagaha qurbaha joogo tuugada caydha ku gatay dahabkay caydha ku gadatay ayadoo qaxooti bay lacag diraysaa xagee ka keentay lacagta waa in laga qaadaa naagaha sharciga waa in nimanka dagaal oogayaasha la jiro la safan lacagaha diraayo waa in la xidhxidhaa sharciyadan waa in laga wada qaataa taa waxaan farayaa dawladda caalamka adduunka ugu tun weyn yaan ku noolahay maanta ani dagaal ooga ma ihi dagaalna ma rabo mana doonayo wadankayga inuu dagaal dambe ka dhaco dib dambe in ma aragtay dib dambe uu qash inay ka dhacdo oo dambe ma rabo haddaad rabtaan wadankaas inuu nabad noqdo haddaad rabtaan dawladdan caalamkee nagu daashay kharashkeediina gelisay waa inaad dagaal oogayaasha soo qabataan maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta eedaysana ma aho awal waxaad ku eedeynayseen 2 sano ku darsaday oo xaraan wax kasta wuu uga tanasulay stiilna barti bay taagan yihiin stiil wali barti bay taagan yihiin kamay dhaqaaqin mooryaanti qoryihii sidii bay u haystaan shacabkii bay dhacayaan habeenkii markay tahay guryaha xaafadaha loo daataa sidoodii bay bilaabeen waxoodii bay bilaabeen bililiqadii bay bilaabeen ilaan bililiqa iyo xaraan bay u barteen
إلا بلقي أبرتاني مسق ما سقيبو يري محمد عبد الله فرماتو ودن كيبو دولة كيفية دلين يرديبو يو مسكحة ينية دقول الصي وكوا ويلش عيدن كأسوا وده جلاي فيسبوك لايف إله أنا الدولة دانا نوجه رئيس دولة نسيسة أو نتصته دولة نما دولة نتصته دولة محمد عبد الله فرماتو نوجه رئيس واكو وضله حقيقة حق الله ما قريو سومالي قف كست أو ميل كست الدنيا ده كجنة وشهي حقها قرنين حقها الدبورين قبر إيه قيامة كسجايو قبيل كدوني كنالو وحبا إيجا مجلين أنا دتك ودن كينا دبك كشدايو إيه أنكهر سلا أنا وإن ما أنت هل إنا عجز سودة شيء سنة وإن هل إنا عجز سودة شيء سنة وايا وحي إنه هيدا ديله ورمحان كتوكنينا ورمحان كسومينا ورهدانا حق كهلين محان كسومنا هاي ورمحان كتوكنينا ورمحان مسلم كنا هاي ورهدانا حق كهلين ورهدي أفكارنا لقبنايو ورهدي نلاسو هنشبي هدان هذا الله ورعنا ومرايكن جوج هدي عدد نلاسو دوباي ورهدي نللي ما حد لكرتان وريا دتك أفريقيا جوج سوماليا جوج بعدد أنا جناسو دراي دتك قريه هذا حلاليستي ديك دتك شعبك ديك جود كنا حي قرحة بلايا السميناي حمر إني دكت النبض أديدي دليرة أنا دي بدك شوي ديك جان نجي فوق صدي باولين نحيسته قفنا نقول ناحي قفناها نقول ناحي وإنا نسقى بالناس سومالي ميل كستئد الدنيا كتشوكتان حوالات دي العقل قدره وإن لبنا ده دقالك إن نقول تيران كيس كلا وإنا أننا لق الله وإنا دينتين يحق استاجنا وإنا الحق كل منا وإنا دت كان يديجن يودن كان أدقالنا وإنا هو يكست أو إسلام أو دين إسلام كأمين سن وإنا قبيل هلكا إسكتنا وإنا علن كان يدت كان يديجن أن قفرها نقول إحناحي صدن سرنا هيستو إن أفرتن سرقسي سعنو وإنا قفرها إسكسوق بنا وإنا قفرها إسكسوق بنا نقول ناحي وكوا ويلش إن أدري مجفا أدري وإنا كوا ما أنت لا تقالنا وإنا كوا محل ده وإنا كوا ما أنت أن محل طلع بر يبيه وإن لو كلا بحا سومالي وإنا بر يبيه ما أنت وإن لو كلا بحا شري مركي صدقني طبعاً كويلة SYL وعلى كلا بحا ما أنت وإلا كلا بحا قرن دمس إيه قرن دون وإن لو كلا بحا قرن دمس إيه قرن دون وإن لو كلا بحا هيه ما فيرسان كرنا وحن دad مسلمين إنه نهاي دين بينو ليرنهاي الدون كمان نلا يابن مدحوينه محمد عبد الله فرماتي وحي لوgu haystay oo dhan uu ka tanazulay steelna gabdhihii baa la dhacaya oo la kufsanaya steel qoryihii baa la wataa steel qoryihii baa la soo galaya wadanku maba amaan steel waa wadan fawda ah fiidiyow aan ka naxno ayaa naloo soo diraya qoryo ayaa naloo soo diraya hanjabaad baa naloo soo diraya codad baa naloo soo diraya محل كرتين بان اللي حقه وين نكون منا حقه وين نقعمها إسقبسنا أنت وحجرنا يسو الصومالي إن يرنا ديج يرنا وإذا كنتم بي وين استاكتان وين نقعمها إسقبسنا وأنت وحجرنا يس الصومالي مسلم الدين له قبيل كهلك يقدك قرن كيسي قشن كيسي قفناها ويلش نبض كردي شرفت النقد دقي عالم كيجا عوالم ما أنت هوس ودقي dadka waa dad Soomaali ila ah waa dad maanta shaati qabiil soo huwanayo waa inaan karaamada ka dhignaa waa inaan hilibkooda jiidnaa waa inaan laynaa waa inaan sida al-shabaab aan ula dagaalamayno waa inaan ula dagaalanaa Xasan Sheekh iyo ninka Sheekh Shariif la dhaho iyo ninka la yiraahdo maxay tahay muxuu ahaa iisoo sheeg muxuu ahaa ina Cabdiraxmaan Cabdishakuur nimankaas dani انت الله لا إيه انت قرن كصومالية كسهر جد النبض كسهر جد وإن صومالية دين عقصو جد سنة ترير يتلع النجوا كالحرين قعمها سائس انت السوق بسنة وإن قعمها سائس سوق بسنة وإن حق كده قال لنا حق وإن كده قال لما أنت وير إرك يقولك هذا كله سوق هذا يا وير إرك يقولك وريا وحي الربان مله دين مله oo ilaahay ma yaqaanaan oo dadnimo ma leh oo ma lahan Soomaalinimo ma leh oo meel la cuskada ma leh madaxdii hore sharafta ka dhacday iyo ninkan khayra la leeyahay khayra duuflena ku dar asagana xisaabta ku dar dadka kiciyay madax noo soo ahaa sharaftii ka dhacday saddex geel maanta daba taagan aad moodo waligood ba inay hilib geel cunin
qaa'imiinta ah musaska ku jiro waa inaan iska soo qabanaa waa inaan iska soo qabanaa dal iyo dibad saan u dhannahay Soomaaliya inta wax garanaysa weeye ana inta wax garanaysaan la hadlaya hooyo Soomaaliyeed baan ahay hooyo la soo qixiyay baan ahay hooyo ilmaheeda future-kii laga soo dhumiyay ay aniga igan baa future-kii laga soo dhumiyay caruurtaydana meel uma hayo meel aan ku celiyo uma hayo tuugadu dhashay ee shaatiga qabiilka ii soo huwatay ee mooriyaanta haddaana dhinac uga soo wada jeedsanin oo na calankeena iyo ciideena u istaagin madaxweynaha rabna annaga haddaana dooranin waxaad ogaataan kuwaasaa noo talin Soomaaliyana saasay ku burburtay haddaan maanta istaagi weyno haddaan maanta tashan weyno haddaan maanta isku duubnaan weyno haddaan maanta gacmaha isqabsan weyno haddaan dadka maanta way hub aruursanayaan dowladda qaranka lacagtii maxay tale iyo qarashkii la geliyay ciidanka maanta saasaa boolbool loogu furaaya boolbool baa ciidankii loo furaaya maanta hantidii qaranka lala kala cararaya maxay tole waa la hub aruursanaya maxay say ku dhici kartaa dadkii shalay 30 sano wiilashanada badda ku daadiyay ee magafa u dhiibay maantana inay wadankii nala joogaan inay dal iyo dibadba nala joogaan inay lacagaha dirayaan inay lacagaha dibadaha ka dirayaan siday ku dhici kartaa taas siday ku dhici kartaa miyaana dad muslimiin ahayn miyaana dad diin ahayn maxaa khaldan Soomaali Maxamed ma gacmaha isqabsadno ma maanta xaq u dirirno ma dadka bisha Ramadaanka ee bisha xurmadana ka xishoon waay ee ilaa stiil madaxweynihii u tanaasulay wali qoryihii wato ee zigaala ku dhuumaalaysanaya habeenkii intay soo baxaan gabdhaha maxay tala u galaaya jiqda war waxaan fiirsan karna ma fiirsan karna waxaan annaga waa inaad istaagtaan waa inaad qaranka u istaagtaan waa inaad sharaftiina difaacataan indhaha iska eegine annaga ka awood badan tuug kasta annaga qaban karno tuug kasta meel kasta oo adduunka ka joogo wariya kuwa jooga qurbaha ee diraaya maxay heetolay lacagta diraaya annaga ayaa qaban karno report waa inaan dhahnaa waa inaan sheegnaa xawaaladii lacag laga diro waa inaan saa u daba taagnaana waa inaan dacweynaa dadka qaranka duminaayo dadka ku cayaaraayo sharaftaanadii dadka diintaanada gatay war sidee hadda 30 sano wixii ka badan adduunkaana qabsanaayo waana la qabsanaa haddaan saa ku soconno oon ka ahayn gacmahaan isqabsanno gacmaha waa inaan isqabsannaa waa sidee maxay tahay waxan wallahi wax loo dulqaadan kara inaysan ahayn waxan wallahi inaan loo dulqaadan karin dad muslimiin ah diin baan leenahay dad islaam ah waxaan uma dulqaadan karno madaxweynaha tanazul wax walba oo rabeen wuu u sameeyay qof iyo cod buu rabay inuu wadanka gaarsiiyo waa laga soo horjeedsaday stiilna waxaa la leeyahay madaxweynaha maxaa Cabdullaahi Farmaajo waan dilaynaa meesha waan ka tuuraynaa wariyaa taasna ma qabanaysa annaga dad islaamaynu nahay nama qabanaysa tan mana qabanaysa mana yeelayno istaaga kaca hala ribood gareeyo dadka tuugada ah ee qurbaha joogo waa in la ribood gareeyaa meel kasta ka joogaan adduunka qarankeeni bay halihii yaraayan nabadda ahay noo soo iftay bay rabaan inay maxay talay hal bacaad lagu lisay ka dhigaan inta yarayda nabadda ahayd noo soo iftay wadankeena annaga iskale waa inaan wadankeena difaacnaa waa inaan diinteena difaacnaa waa inaan calankeena difaacnaa subxaan allah intaa ka badan aqli ma jiro dadka saa u galaayana waa dadkii madaxda soo noqday waa inaan maxkamada saaraa war dad islaamaa nahay waa inaan diinteena iyo kitaabkeena isku xukunnaa sidee buu qof aniga shalay iisoo ahaa madax sidee buu maanta dagaal ooga ku noqon karaa sidee buu qarankii ku kala furfuri karaa sidee buu ciidankii qaranka u taagnaaye loo dhisay ee lacagta la geliyey sidee buu ku kala furfuri karaa sidee buu hantidii qaranka iyo qoryihii askarta loogu talgalay maalin walba u goosanayaan wiilasha askarta aha sidee baan u eeganaa marka qarankaanagii oo dubaayo diintaanadii oo lagu dheelaayo dadnimadaanadii iyo sharafkaanagii oo dhulka lala galaayo sidee baan marka annaga ku aamusnaa marka
inta aqliga u saaxiibka ah ee wadaninimo ay ku jirto oo islaamnimo ay ku jirto oo aan qabiil halkaa iga dhigay qabiil wuxuu taraaya malahane cid uu qabiil meel geeyaan jirini intaad istaagtaan ood ilaahay ka yaabtaan intaad istaagtaan ood ilaahay ka yaabtaan dal iyo dibad meeshaad joogtaanba dal iyo dibad meeshaad joogtaanba jawaasiistan tuugadan dadkan waashay uqubada ku dhacday inkaarta ku dhacday masiibadii dadka ay ka galeen baa kasoo ifbaxday wallaahi sharaftiiyo karaamadii baa ka dhacday laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sharaftiiyo karaamadii baa ka dhacday dadkii madaxda noo soo ahaa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuul war waa la ceeboobayay ceebta adduunkaa la dhex dabaalanaya ceebta adduunkaa la dhex dabaalanaya bal dadkii madaxda shalay noo soo ahaa ee maanta dagaal ooga ah ee qori ku faanayo ee ciidankii kala furfuraayo shalay waxaan dhagaysanayay wiilal askar ah oo leh annaga sidaan halka ku joognaadi ninkii garabkayga taagnaaba waa kan qabiilka aaday sideen ku shaqaynaa annaga waa runtood war qarankaana kitaabka aan gacanta u gelinay kitaab baan gacanta geliyo yiri aan markaan aan qoranayo ciidanka waa runtood kitaabka soo ku soo qaban maayo soo kitaabka quraanka ku qaban maayo markaad ciidankaaga iyo qarankaaga ka soo horjeedsato war qarannimaad wax ku tahay war wiilka Soomaaliga oo hooga oo bee waxaad ku tahay kan cararaaya ee tuugada u galaya ee qabiilka aadayo qarannimadaad wax ku tahay walaal qarannimadaad wax ku tahay haddaad qabiil aado qabiil meelu ku geynaayo male berri adoo meydkaaga halkaa yaallo kaa tallaabsan markuu kursiga kugu fuulo saasay lahaayeen wiilashii shalay soo galay facebooka صح marka halla kaco fadhi inooma yaal aan istaagno inta qaranka jecel ee islaamnimo iyo diin laho diin inta leh baan la hadlayaa aniga ee aqli leh ani tuugada lama hadlaayo mooryaanta lama hadlaayo qaa'imiinta lama hadlaayo kuwa boolida rabo ileen booli bay u barteen ileen qof booli u bartay meel ma fadhiisto علي حرارة كهلا يعني شلي أن أركي أنصو شير قري أوله محيه طولي شرفتي باكر دعض ننكي خير رأها ورعيب بدنا الدونك ورعيب بدنا ورنمنا السوح حكوماي وما أنت قرنك كلا فرفراي عيدنك قرنك لعقت اللقلي كلا سيسيباي ورهداد موريانا يساكو سعوتان إلهي بان كل دارتي والدين قبن إلهي بان كل دارتي والدين كأود بدنيه إلهي بان كل دارتي والدين كأود بدنيه مريكان بالدين كدول كيري إلهي بان كل دارتي أنا قربها تشوقنا ريبوت كان دقينا ريبوت كان دقينا سومالي هذا إذن كلا بحدا أنت كلا ده أنت يا توجا والله دلع والله الله ينايا ديارة على قرشينا يا حدا ونها عبادنا مرك ديارة على يذكر شيء ها عبادنا هدو marka diyaaradaha la idin ku rusheeyo ha cabaadina ilaa wal idin ka awood badan yahay war kaliya qaran ma noqon kartaa qoys qaran ma noqdaa no qoys qaran ma noqdo horaata loo waay Soomaaliland baa 30 sano qoys u taagan oo qarannimo yaan rabnaa say u lahaayeen qarannimo ku waayay isku duubnaanta iyo calankaasaad wax ku tahay calankaasuno kaasaad wax ku tihiin kaa haddaad kala furfurtaan waxaad ogaataan inayna weligin iyo allihin meel gaaraynin xisaabta ku darsada idinkana taa qarannimo iyo isku duubnaan iyo midnimo ayaa meel lagu gaadhaa walaal haddaad doonaysaan inaad ku noqotaan naydhiwanka intay geel kusoo dulqorteen bay war waxaan nimayo wax meelaha noo soo dhigdhigayaan baan soo nacay waxaa markaan arko dhiigga igu karo الله ديجا يكره مركان وحى أرك أخص نما يودت كان وين عقل قاله مدح بان له عقل بان لين نحيله مدح الصون نقطة أنا ودت كلا لما يابني أنا مريانت لما يابني مريانت ولي قد بحبي دعيترتي أنا وحنا لا يابنا هنن مدح قرن صون نقطة والصومالي صو حكومة وحدنا الدجال أوجا ورأنا نكاسان لا يابنا ورأنا نكان هذا موسى السودي لما يابني موسى السودي ولي جسبه واحد اللي تشري موسى السودي دجا مرة هرو ديك إسلام كسوي عبي كان أنا لما يابني يا عبد قيديد كان يضل كان لما يابني لكن وحنا لا يابنا نما كان مدح الصون نقطة
nimanka madaxda soo noqday ee sharaftii karaamada iska qaaday sharaftii karaamada iska sideebay qaran dambe hadhow ku maamuli doonaan sideebuu ciidan qaran sideebuu hadhow ku maamuli doonaan ninkaa waa su-aal daaweynu madaxa daalinaysa war ninkaa siduu qaran hadhow ku noqon doonaa ha sidee kursi ku fuuri doonaa ninkaa hadda leh maxaa cabdullaahi farmaajo banaanka laygu soo bixiya hilibkiisaan gogoosanayaa maxaa cabdullaahi farmaajo maraykan baa dhabarka ka taagan maraykan baa dhabarka ka taagan adeer sharci buu meesha kusoo fuuray sharci buuna kaga tegaya isma hubaan lama tartami karaan warkaalayla tartan buu ku leeyahy maxaa cabdullaahi farmaajo wuxuu kuu dhimay ciidankiibu kuu dhisay 99% waxay ahaayeen ciidankii la dhisay hawiyay ahaayeen 4.5 baan meesha lagu saaraya hay 4.5 marka horeba xaqdarraa lagu saaraa meesha oo dad baa la xaqiray oo haaf laga dhigay dad Soomaaliyeed baa haaf laga dhigay marka horeba xagee baan ku aragno dad dhan oo bini aadan dhan oo haaf laga dhigay xagee baan ku aragnaa adduun korkiis dadka xaqoodii baa idin haayo waxa la istaag laadiin oo aad la istaag laadiin oo meel la gaadhi laadiin dad dhan oo Soomaali idin la ah oo wadanka ayagu u xaq leh ayaad haaf ka dhigteen that is why la istaag laadiin aad la guuleysan laadiin oo meel la gaadhi laadiin still la waa ku socotaan wixii still wali wixii baad ku socotaan still wali wixii baad ku socotaan wariyaa ilaahay yaqaan marka calaayo kulli xaal gacmaha la isqabsado aniga wax badan oo waqti adin ma haye calaayo kulli xaal gacmaha la isqabsado I don't have time maanta time badan ma haysto gacmaha la isqabsado hal la istaago ana saasaan idin leeyahay saasaan idin leeyahay aniga ma garateen wax yar ii kaadiya bal باغ حرو باغ والله حرتا حرو اوكي باغ حرو هو والله حرتا باغ اوكي فيسبوك لايف عم بترى اوكي مامي marka walaalayaal waxaan leeyahay waan ka sii tagayaa waqti ma haye ha mama صادر ماما فيسبوك لايف عم تجرى قلق القل اوكي هيدي وحيرنا بجرى واركبحها How many minutes? 20 minutes Just I gotta get my socks. okay هاي Can I have the red phone while you? what Can What I do you have say? the red phone? your red phone abayada haysto qolkay ku jirtaa ka qaado walaalayaal waan ka sii tagayaa kow dhaha caruurteedii baa iskuulada ka imaatay marka waxaan idin leeyahay ilaahay ha laga cabsado gacmaha la isqabsado ilaahay ha laga baqo qabiilkan iyo qurunkan iyo qashinkan aan iska dhaafno rabbi ha laga baqdo dadka wadanka duminaayo hal meel ha looga soo wada jeedsado dowladan maanta maxaa cabdullaahi farmaajo hadday dhacdo anuu rajo kama lihi Soomaaliya wax rajo oon kale yahay ma jirto tuugna anay ma xukumaayo xaraan bay ka tahay inuu tuug i xukumaa wax rajo aan kale yahay ma jirto rajadayda halkaas ay ku dhimatay dad badan oo aniga ila mid ah way jiraan dadkii way niyad jabsan yihiin qalbigii baan xanuunayo qurba joog baan nahay dadka Afrika jooga annaga qoodino xaqiiqatan Afrika dadka jooga annaga lacag u dirno qoodino soo okay qolka gal hooy macaan okay wax yaraan ku jiraa 20 minute waa ka baxaya
marka waxaan leeyahay walaalayaalow ilaahay ha laga baqdo, ilaahay ha laga baqdo. dad muslimaynu nahay, diin baynu leenahay, diinteenna, dadnimadeenna, sharafkeenna iyo cizigeenna iyo karaamadeenna dhulka intaa ka badan ma ooli karto, ma ooli karto intaa ka badan. anoo gabaraa gartay, anoo hooyo Soomaaliyeeda intaa gartay. raggiinana maxaad la garan laadihiin wanaaga nabad iyo noloshu dadkoo dhan bay dan u tahay. war nabadda dadkay dan u tahay. war meelaan nabad lahayn lagama shaqaysan karo. وعليكم السلام walaalayaal waa idinka qaadi salaanta dhammaantiin aan idin kala qaadin waana idin jecelahay inta samaha jecel inta deedhimatay oo qalbiga ka daxalaysatayna ilaahay hadduusan soo hanuuninaynin allahna dhaafiyo naga tirtiro ilaahay idinkiisa bishii barakaysnay 10kii dambe aanu galnay waxa waaye ila walaalayaal hal la duceysto walaalayaal cidda dhibka ku haysa Soomaaliya hal la habaaro dadka dhibka ku haya Soomaaliya ay Soomaaliya ka degilaaday waa in la habaaraa haddii wax kale la qaban waayaa waa in laga soo horjeedsadaa waa inaan aan xaq darrada la taageerin waa inaan xaq darrada la taageerin dad islaamaynu nahay dad ilaahay diin siiyay baynu nahay diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena iyo diin iyo ciideennaba waa inaynu u istaagnaa waa inaan wadankeena difaacnaa dadka maatida masaakiinta ah maalin walba dhiigooda awal baan rafaadsanayn awal baa qarax lagu dhameeyay dadkeenadu ogtihiin awal baa shacabkeena qarax lagu laayay awal baa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho qarax lagu dhameeyay oo lagu laayay oo xaqoodii oo dhan uu maqan yahay haddana maanta dagaal ooge inaan maanteeto uu xamar dhex taagan yahay waa nasiib darro waa ayaan darro waa qalbi xanuun waa niyad jab wallaahi waa niyad jab wallaahi waa niyad jab maanta in dadkii la niyad tibiyo dadkii in la niyad tibiyo dagaal la ooga maanta dadkii wadanka ka soo shaqeeyay ee wadanka madaxa ka soo ahaa maanta inay maanteeto dagaal oogayaal noqdaan ee ay dawladoodii iyo wadankoodii iyo daarahoodii rabaan inay dumiyaan ay wax bililqaystaan ay rabaan waa ayaan darro waa nasiib darro maanta anigayga gabadha abaa ka aqli badan ninkii madaxweynaha soo noqday anaa ka aqli badan anaa ka ra'yi badan sidoo asagu u fikirayo uma fikiraayo nabadaan rabaa nabad baa naaslan luugale hooyaan ahay dad islaamaynu nahay muslim baynu nahay war diinta iyo dadka iyo carriga maxaa loogu dheelayaa war nin madax soo noqday oo gabar ka fiican tahay bal arka hooyo ay ka maskax fiican tahay ani kuma taliyeen maanta waxa maanta haddii yacni waa isduugi lahaaba haddii hataa aan khaldamo bini aadan baan ahay anoo madax soo noqday haddii aan khaldamo wallaahi dadka waan ka dhuuman lahaa wallaahi dadka waan ka dhuuman lahaa war dad aad shalay qaran aad lahayd maanta haddaad qaran dumis alla soo hor istaagantahay ka waran dadkii shalay aad u sheegaysa beenta shalay been buu naga gaday xasan khayrahan iyo xasan xoolaba been bay naga gadeen madax baan moodaynay laakiin dagaal oogayaal bay ahaayeen qaa'imiin bay ahaayeen dabadhilifyaal bay ahaayeen tuugay ahaayeen dad xun bay ahaayeen sideebay marka annaga maanta nagu maamuli doonaan hadday soo fuulaan meesha hatta haddaad kursiga xoog ku soo fuusho caalamka sidee tuugsigii aad tuugsan jirtay ilaan waa tuugsan jirteene sideed caalamka weji nuuceed ku qaabili doontaan hadda kaba soo qaad xamar waad burburisay maxaa Cabdullaahi Farmaajona waad iska soo bixisay daarihiina dhulkaad dhigtay dadkiina dhiigoodii waad daadisay sidaad shalayba u daadinaysay haye berri sideed nagu maamuli marka waa su-aal da'weyn oo madaxa daalinaysa sideed berri nagu maamuli bal ood kursi kusoo fuuli sidee lagu aamini qaran Soomaaliya afkaaga ma laga maqli doonaa berri ilaan qaran dumis baa tahay subxaan allah war maxaa Cabdullaahi Farmaajo sharcigu ku taagay haddaa shalay marmarsiyo ka dhiganaysa 2 sano 2 sano lagaaga tanazul lagaaga tag hay waa lagaaga tagay lagaaga tanazul kaala ila tartan baa lagu yiri lama tartami kartid de ma la tartami kartid de la khayn baa tahay wallahi ya adduunkan waxaan la arkeenin mal anagana waa niyad jabnay wallahi waa niyad jabnay war waa xanuunsanahay maanta xoogaa shalay iyo maantaba okay mihi waan ka sii dhacayaa kow dhaha wallahi yaab waa adduunkan waxaan la arkeenin malahan dhiigii baad nagu kariseen dalka anaga rajaan ka lahayn
ilmihiinaad ku ceshanaysaan baan islahayn annaga maanta baahina ma hayso waddan nabadaan joognaa waan shaqaysanaa laakiin dadka annagaan u naxaynaa maatida meeshaas lagu xasuuqayaan u naxaynaa annaga maatadaasaan u naxaynaa masaakiinta ah hooyada maskiinta ah ee yaanyada goobaysanayso ayaan u naxayaa anuu marka horaama ka soo qaxay waddankii ka soo cararay marka ummadda qofkii hadlaba qabiilka haddana lala soo ordayaaba iigu daran qofkii hadlaba waxaa la leeyahay maxaa cabdullaahi farmaajo lacag siiyey maxaa cabdullaahi farmaajo saan u adig ma tuugga lacag ku soo siiyey adiga naftirkaaga mooryaankaas khaa'inka ee dadka dhiiggo ad difaacaysa adaaba ani iga daranay ani maxaa cabdullaahi farmaajo dan taageeraya tuug maba aha maxaa cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne soomaaliyeed adaaba ani iga daranbe adaaba ani iga daranbe oo tuug taageeraysidbe oo dadka caynaysid miidiya dadka ka caynaysid adaaba ani iga daranbe oo mooryaan ah war qof kule nabadaan rabaa oo nabadaan u baahannahay oo nabadaan na anfacayso oo nabadaan naas la nuugale qof kule war nabadda qof leh iyo qof leh mooryaan baan ahay tuug baan ahay waxaan rabaa inaan dadka dhaco dadka mooryaantaan la jiraa oo la safanay waxaad dadka social media uga soo caynaysaan wax kale ma aha bal labadaa qof meel miya isla geli karaan qof dhahaya war nabadaa fiican war nabadaa naas la nuugale war dadka ha qaxinina war ummadda ha dhicina war ummadda ha bililiqaysanina war horaa dadka usoo bililiqaysateen war horaa dadka u disheen war dadkii haddana fartiin halkan waxaa looga farayaa halkan waa la kala baxay shalay 13 SYL ee gumaysiga la dagaalaysa waa la kala baxay Soomaalida qaybna gaaladay la jirtay qaybna dad fiican oo waxay ahaayeen wadankooda difaacay haddana maanta saasa loo kala bixi doonaa maantana saas baa loo kala bixi shalayba Soomaalida qaar daba dhilif waa nugu jireen waagi gumaystahana haystayba daba dhilif waa nugu jiray daba dhilifkii baa sii dhaldhalay oo sii baraaray oo ilaa hadda qarax iyo balaayo waxa fulinay waa daba dhilifkii waa kuwii faracoodii weeyaan waa kuwii faracoodii marka halkan fartiin waxaan uga farayaa dadkii la soo bililqaystay guryahooda xoog looga haystay dadka laga dilay ciidaasaad ka badan tihiin banaanka u soo baxa maanta xaqi baa ifay banaanka u soo baxa gacmaha la isqabsado tuugada dhinaca looga soo wada jeedsado qof kastoo muslin ahow oo Soomaali ahow banaanka u soo baxa si loola dagaalo dadkaas tuugada ah social media ka buuxo dadka caynay cayda soo qoraan kuwa way nagu dhex jiraan meel kasta joogan meel kasta way joogan meel kasta waa taagayin tuugadu dhashay dubka ku eke afkaaga ku hadle qayn dhalay tuug dhalay ilma bililiqo meel walba waa joogtaa marka fartiintaas iga sii gaarsiiya war meel walbaad joogtaan dadka laga soo dilayo ani xabad ba igu dhacday kulley ani intaasaan u haystaa xabad ba igu dhufteen wayna ibriliqaysteen xamar ani intaasaa iga soo gaadhay aniga farduus ahaantayda shaqsi ahaantayda lugtayda bidix ayaa xabad la iga soo dhuftay marka mana garanayo qofka xabadda ayadoo wiifta ah igu dhacday ayadoo wiifta ana gurigayga iska dhex joogo oo reerkanaga iyo gurigaanaga dhex fadhiyo bay xabad wiifta igu dhacday intaasaa iga soo gaadhay xamar ani xamar intaasaa iga soo gaadhay lafna imay jibin waana nala bililiqaystay oo dadkii la bililiqaystay baan ku jirnay waan qaxnay intaasoo jeer baan qaxnay marka qof walbo qof uga dhintay ani qof igama dhimanin xamar qofna igama dhimanin aniga familkayga hal qof igama dhimanin alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddaan dhao qof laakiin adeeraday qaar waa ku dhinteen ilma adeeraday waa ku dhinteen dagaaladii xamarka soconayay soo marka intaasaa iga soo gaartay ani xamar 1991 waa joogay dagaalka 4 bilood waa joogay kii cakaaraha Salbalaadha waa joogay soo marka gacmaha la isqabsado intaasaan idinkaga tagayaa gacmaha la isqabsado wallahi ana intaasaan idinkaga tagayaa hooyo daacadaan ahay hooyo waxaan ahay qabiil iyo qabyaalad midna toona aan ku korin aqoonin qabyaalad ilaahay waa iga badbaadiyay alxamdu alshukri mahad allah dadka Soomaaliyeed iima kala sokeeyaan
dadka dabada ugu dhaqa dadka qabyaalada iyo qabiilka kuma jiro aniga kuma jiro ilaahay waa iga caafiye taas qaran baan rabaa aniga nabad baan rabaa aniga dadkayga Soomaaliyeed oo kala qaadayni jareer iyo jileec oo nabad ku naaloona ayaan rabaa aniga ummadaydaas oo nimco iyo barwaaqo ku jirtaan rabaa aniga inaan arka ciidan Soomaaliyeed oo dhisan ayaan rabaa anigu qarannima ideeqda aniga Soomaaliya oo midowday baa ideeqda intaas iga badan marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka aad ka joogtaan haloo istaago xaqa haloo istaago nabad baa naas la nooga leh waan isnaqaanaa anaga hal qoys baynu nahay oo farcamay qoys farcamay baynu nahay waan isgaranaynaa cidda nabadda diidan cidda dagaalka ka oogaysa Muqdisho waan garanaynaa cidda diidan nabadda waanu naqaanaa qoys baynu nahay waan isgaranaynaa iska soo dhex qabana dadkaas hal dhinacna aan uga soo wada jeedsano wax hadaad wax maqlaysaan haddayna waxba maqlayninna dee sidaad sidan u tihiin ayuu gumaysta idin qabsan doonaa mar labaad gumaysta ayaad u diyaar garoobaysaan haddaad nabadda diidaan gumayste ayaad u diyaar garoobi doontaan nabadda haddaad qaadan weydaan maantay nabaddu idinkugu dhowdahay 19 dhawaan geel intii lagu soo qortay adeer labada jidka horaa kuu fiican ka dambe wuu kaa fog yahay adeer kaa waad kasoo tagtay kan hore lee ku soco adeer wanaagkeen xalkeen saaxiib 19 dhawanaa lagu noqonaa ariyaa xal kuuma noqonaaye kursina saas ku fuuli maysidi dadna ku maamuli maysidi adeer kursi saa laguma fuulee jid dheer baa laga imaaday meel fog baa laga yimide unukaale ma soconaysee unukaale mar horaa laga gudbey adeer war fiican la imow sayid cabdillah xasan baa waxaa laga sheegay intuu u tagay reerkan mayga annaga dhahan buu wuxuu yiri af gaal iyo af muslimiin idinkugu imaado garow ma rabe hadda iga raalle ahaada waan xanuunsanayaa alerji xun baa ahaay ilaa shalay aad igu kacsan walaalahayga sharafta lahow sayid cabdillah xasan baa waxaa laga sheegay garow ma rabe af gaal iyo af muslimiin aan idinkugu imaado Soomaaliyay af muslimiin iyo af gaal mid la imaado inta nabadda jecel guul ayaan idin rajaynayaa wallaahi wax laga naxaa waddankeena ka socdo wax laga yaaba waddankeena ka soconaayo wax laga argagaxa waddankeena ka soconaayo wax cajiiba waddankeena ka soconaayo gabadhee hadasho ama wiilka halkaas soo istaago waa loo hanjabayaa heer waxay marooyaan aan ku dhahay taleefanada ay hanjabaad ku soo diraan ummadii qaxays mooryaanti reer biliqo ilma biliqo taleefanada dadka loogu soo diro loogu hanjabooyaa marka kuwa gadaal ugu ma noqonaaye insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka guuleysanayno xaqi iyo baadilkana dee xaqa sareeyo mar walbaba qof kasta oo Soomaali ah waxaan ugu baaqayaa diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco qofka mooryaanka ah kulli xaq kuma socdo qofka biliqada u socdo qof xaq ku socdo ma ahan waa qof yacni ilaahay wax raali ka ahayn ku dhaqmaayo waaye soo marka qofka xaqa ku taagan waa inta qarannimada u doodayso waa inta Soomaalinimada u doodayso waa inta u doodayso maxay ahayd tolay xaqa ka hadlayso weeyaan marka dadkaas xaqa ku taagan inta nabadda jecel inta ku baaqaysa nabadda dadkaas ayaa xaqa ku taagan xaqiiqatan annagu dagaal hadduu faa'iido leeyahay waa soo aragnay adduun dhibaato waan soo marnay dhibaato aad u badan aan soo marnay marka waa idinka sii tagayaa waqti ma hayo
خير بدنا أدير تشينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذنكم إجعل أنا إذن جعل إذن كسيتها إذن سود دعية وقا إلرتحنا وكعسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.